asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodka koonfur hindi maxaa ka cusub fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar muuqaalka noola gareeya waana ku mahadsantiin wanaagga noo muujisin waxaan ku bilaabay marka koowaad dabcan waxaa jirta sheeko xiisa badan oo ku aadan 3 filim oo koonfur hindiya iyo 3 filim waxaa lasoo bandhigaa dabcan oo bollywood ah sidoo kale tan dhammaan aflaantan waa ban india movie mashaariicdan waxaa dabcan si interior oo gudaha dabcan looga soo wareystay dadka tiyaatarada iskale single screenska iyo multiplexka waxayna soo xusheen saaxiibada qiimo badan 3 filim oo arkaan bollywoodka inay qabsan karaan tiyaatarada iyo sidoo kale 3 filim ee loo arka dabcan tiyaatarada inay qabsan karaan dhankaasi koonfur hindi kasoo jeedaan oo guud ahaan hindi idin qabsan karaan markii la fiiriyo waqti ahaan filimada waxaa ugu soo horeeyay Gadar 2 oo sanadool hogaamiye ka yahay oo qaybta labaad filimkii Gadar ahaa sanadii 2001 soo baxay all time blockbuster noqday hadda waxaa leeyahay sanadool star powerkii awoodii uu barsamaadkii lahaan jiray malaha laakiin Gadar waa filim shacab wanaag hindi iska leeyihiin qadiyada ka hadlaya hindi Pakistan iyo fariin jecel qaybtii koowaad guushii lixaad uu gaaro waxaa la hadiyay teaserka laga soo bandhigay ama goosgooska Gadar laga soo bandhigay wax kasta ugu toosan yihiin hubanti ahaan 11 Agoosto toddobaadka xorriyadda hindiya filimkan si weyn u qabsan karaa tiyaatarada hindiya dhinaca kale waxaa lasoo qaatay filimka lagu magacaabo saaxiibada qiimo badan Salaar oo asigana soo baxay 28 September ayay koonfur banaan keensadeen waxay leeyihiin annagana filimkan ayaan wadanaa mashruucan waxaa la Barabasa hogaamiye ka ah awoodiisu waa la yaqaan sida ban indi wax kaga gedi karo waa ninkii Bahubali ku caanbaxay sidoo kale tan waxaa directorka Prashant Neel oo KGF ku caanbaxay labadan combination waxaa la hubanti aan waxay ka dhigantay score kasta cagta ay marin doonaan markii la gaaray saaxiibada qiimo badan October waxaa dabcan loo baneyn doonaa magaalka Thalapathy Vijay iyo filimkiisa Leo kaasoo asigana ban indi movie noqon doona Lokesh Khanna directorka ee fariinta dabcan gangsterka ximbaarsan Vijay waxaa le markaan uu kasoo tilaabaa Tamil Nadu Hindiyo idil ayuu qabsan doonaa waa filim kale oo koonfur ay wataan saaxiibada qiimo badan November markii la gaar hadal haynta waxay noqonaysaa filimka lagu magacaabo Tiger 3 ama Tiger Zinda ee qaybta saddexaad ayaa dabcan soo baxayo taxanaha Tiger iyo Salman Khan filimkan 1 karoor ka lagama fadhiyo maadaama wadada bataan uu mari karo saadarta waxaa leeyahay waxay ka dhigantay feestay Diwali Hindiyo idil iyo daafaca caalamku Salman Khan galgeli doonaa dhinaca kale tan December waxaa leeyahay markii la fiiriyo dabcan waxaa jira filimkii xiisaha badnaa ee Danki oo Shah Rukh Khan hogaamiye ka yahay laakiin mashruucaas haatan 100% lama hubo inuu soo bixi doono aan assume gareena marka Shah Rukh Khan 6 bilood dambe inay u soo bixin doonaan sanadkan laba filim sababta ciwaanka loo siiyay waxay tahay Bathan oo sanadkan ku qabsaday 6 bilood ugu horeysay wax waali uu sameeyay Jawan asigana wuxuu imaan doonaa September waa filimka dabcan hot ka ah ugu kulul oo 7 September soo baxaya mar kale tan tiyaatarada qabsan karo wax waali sameyn karo Decemberna Shah Rukh Khan hadda u xiran tahay dhankii hadii uu san baaqan saadartee marka waxaa leeyahay hadii August uu joogo Gadar 2 September Jawan joogo October Leo sidoo kale September waxaa jooga Salaar san ka dhawaajine November waxaa jooga Tiger 3 December waxaa jooga Danki kadib maxaa xigi doono waxaa dabcan aad iyo aad loogu shirtama Pushpa 2 oo soo baxay samarka waqtiga noqotay April ama waxaa leeyahay Mars xilligu soo baxay siiba April u badan tahay waxaa leeyahay kan waa ban India movie oo koonfurta soo wakiishan asagana tiyaatarada idil qabsan kara dibad iyo dal Pushpana waa laga warqabaa qaybta kood Allu Arjun wacdaraha uu dhigay mashruuca 1 karoorkee lagama filan doono Ciidul Fidriga dambe oo dabcan April ku beegan 2024 waxaa tiyaatarada qabsan doona Badmiyan Jodmiyan oo Akshay Kumar Tiger Shroff oo gaamiyalka yihiin filimkan action kan asigana waa filim kale oo ay wataan Bollywoodka oo ay leen awoodda koonfur inay qaateen ayaan ku soo ceshan doonaa marka aragtidiina ka dhiibta in 6 filim oo dabcan si gaar loo hadal hayo labada filim Shah Rukh Khan waa budo gaar u tuman sababta SRK asiga hadda levelka sare jooga Bathan ay wax kasta ku dhacsaday Jawan iyo Dankiina xindaab gooni ku jiraan laakiin this 6 movie ayaa waxaa la interior gudaha markii tiyaatarada soo wareystay aad iyo aad loo hadal hayaa inay wacdara dhigi karaan Leo iyo Salaar iyo Pushpa 2 BMC ama Badmiyan Jodmiyan iyo Tiger 3 iyo Gadar 2 aragtidiina ka dhiibta marka filmadan steading hamiga laga qabo way gaari doonaan dhinaca kale qodobada kana soo qaadan karna waxaa qaybka dabcan war waxa la soo bandhig ana yaab Extraction 2 iyo Goosgoos ka soo bandhiga Netflix kan wuxuu noqon doonaa film burburiyo ayaan isla score Netflix soo u yaalo waxaan ka warqabnaa qaybta kuwaad Extraction hadda koor markuu soo baxay score Netflix sida u jibiyay dhanka viewership ka haddana ninkan dabcan laga dambeeyo aan lagu gaarin actionka wax uu sameyn doono indhaha ka yaabin doona Chris Hemsworth wuxuu soo bandhigay goosgoos caadi ahaan 2 daqiiqo iyo 40 daqiiqo soconaya mashruucan wuxuu soo baxay 16 bisha June wax kasta oo rafaad iyo action waa ugu imaanaya filimkani emotion iyo goobaan caadi ahaan oo lagu duubay saadartee marka 16 June ma soo kan Extraction 2 si aan u daawano sida mashruucan loo soo habeeyay qaybtii hore iska ilaaw noqonada sheekada sida haatan loo agaasimayo mashruuca Netflix waxaa leeyahay waa filimka ku qabsan doona samarka OTT-go idil Disney iyo Amazon iyo Ral hadal iyo doona haduu soo baxay Extraction 2 waxa uu sameyn doono
waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka Disney Plus Hotstar ayagana waxay bilaabaan xayeysiin u sameynta Avatar The Way of Water oo 7 bishan June si toos dabcan global lagu soo fasixi doono OTT-ga luqadaha lagu daawan doono Hindi iyo soo kale Telugu iyo Tamil iyo Kannada iyo Malayalam iyo English luqad kasta lagu daawanayo 7 bisha June ayay soo fasixi doonaan Disney Plus Hotstar. Filimkan wuxuu soo baxay sanadka warqab 16 bishii December ee sanadka hore all time blockbuster noqday lacag waa liiga soo xareeyay haddana waxaa la 7 June ayuu qabsan doonaa OTT-ga laakiin aan filimkan af Soomaali laga soo dhigay waa daawana markii internetka la soo geliyay mashruucan dabcan director uu ka James Cameron waxaa u suura gashay inuu dibad iyo dal soo xareeyo 2.32 bilyan oo dollarka Mareykanka. Filimkan soconaya waqti ahaan 192 daqiiqo ka badan waxaa lagu qarash garay inta u dhaxayso 350 milyan ilaa 460 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee saaxiibada qiimaha badan oo haatan ii muuqdo superstar Akshay Kumar Spag uu soo laabtay isla markiiba shaqo bilaabay ninka ma nasan kar inuu shaqeeyo jirto hadda filim lagu magacaabo Sky Force ayuu shaqadiisa bilaabay fariinta wuxuu ka hadlay ciidamada cirka iyo dagaalada Hindiya guulaha ay ka gaareen markay galeen international warska dagaalada caalamiga ah ciidamada cirka. Akshay Kumar filimkan wuxuu ku matalaa marka duuliye dagaalada ciidamada cirka Hindi ka qayb qaadanaya shirkadda caanka ee dabcan Maddox Films iyo Geos Studio ayaa isla maalgelinaya filimka waxaana director-ka Sandeep Kalwani iyo Abhishek Kapoor sida haatan shaac laga qaaday. Mashruucan waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha Akshay Kumar 9 bisha May ayuu dabcan shaqo ahaan bilaabay hal toddobaad ayuu shaqada filimkan wada Bombay ka bilaabatay sidoo kale tan muddo 4 bilood oo mashruucan kusoo gabagabeyn doona kadib ayaa shaac laga qaadi doona xilliga la daawan doono waliba waxaa leeyahay u badan tahay bisha October inuu soo gabagabeyn doona filimkan. deegaanada lagu duwaa markii laga soo tagay Bombay waxaa qaybka Gujarat iyo Punjab iyo Rajasthan iyo Assam ayaa lagu duwaa marka Kumar mashruuc kale oo xiiso badan oo gacanta ku dhigay oo markuu shaqo ahaan dhameystiran lagu dhawaaqi doonaa xilliga la daawan doono. waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee saaxiibada qiimaha badan haatan ii muuqdo filimka Ponniyin Selvan Part 2 halkii ayuu maraya ganacsigiisa xoogaa gaabis ah ku imaatay toddobaadka saddexaad markuu guda galay filimkan haddana waxaa la 350 karoor ka gaabin doona laakiin waa job dhan hid dhameystiran inuu noqdo inkastoo halbeeg la saaray ku aadana qaybtii kooda haduu ku dhawaado 500 karoor asigana ma ka tilaabi doonaa laakiin taasi ma suuragelaysa. Jam Fikram iyo Ash filimkooda Trisha iyo Karti iyo kuwa heliyaan Jam Ravi xulafo badan Manratman director-ka ee fariinta boqortooyadii Jola ka hadlayo hadda wuxuu marayaa saaxiibada gudaha Hindi marka la fiishay ganacsigiisa 200 iyo wuxuu ka soo xareeyay 4 karoor waa canshuurta karoor garoos maniga ah sidoo kale tan lacagta nadiifka wuxuu soo xareeyay 174 karoor dhinaca kale suuqada caalamka si holac kaga gadmaan wuxuu ka soo xareeyay 121 karoor. filimkan hadda wuxuu maraa 325 karoor ayuu soo xareeyay waxaa u dhiman 10 karoor meelaas sidoo ku noqon lahaa hid dhameystiran hubanti ahaan wuu noqonaa laakiin waxaa la 350 karoor ma gaari doono ayadoo qaybtii koowaad 480 karoor ilaa 490 karoor uu soo xareeyay sanadkii hore. waxaan kaloo soo qaadan karnaa sheekooyinka dabcan xiisaha badan qaybka saaxiibada qiimaha badan sidoo kale tan la hadalhayo waxaa la leeyahay dabcan oo dhankaasi markaan eegno Bollywoodka u laabanina Hrithik Roshan ayaa aad iyo aad u amaanay Priyanka Chopra Jonas kadib markii uu daawatay taxanaha Citadel. Hrithik wuxuu dhahay inaba caadi ma filimkan sida BC u jishay anaa kaayaa wuxuu dhahay akshamada aad samaysay kartida ka muuqato jobdan wuxuu dhahay shaqada aad qabato aadan ugu faani karaa. HRA BC waa saaxiibo dhanka shaqada isku tixgeliyaan waxaa lagu xastaa Krish dabcan filimka isla sameeyay qaybihiisa kala duwanaa iyo sidoo kale dabcan gabadhan ay la sameysay filimkii xiisaha badnaa Agnibad saadirtay marka Hrithik Roshan Amazon Prime Video filimkan ka daawatay toddobaad kasta la soo daayay 2 xalqo wuxuu dhahay inaba caadi ma Citadel wuxuu dhahay waan ku raaxaystay filimkan waliba Priyanka wuxuu dhahay performance-ga mid saameyn badan actionkii hogaaminta aqalatan aadan ugu faani karaa ka dhawaaji marka Hrithik Roshan Priyanka Chopra Jonas uu imaamaday filimkana si aan caadi ahayn ayuu u bogaadiyay. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan megastarka caanka Salman Khan dhankaas wuxuu aaday baryahan uu joogay waxaan u leenahay haddana qaldanay West Bengal uu tagay wuxuu la kulmay chief ministry halkaas ka taliyay Mamata Banerjee maamada lagu magacaabo halkaas lagu soo dhaw bandhig fanada ku qabanaya Sallu maalmahan halkaas uu joogay saadartay superstarkan wuxuu reer Bengal sida ii soo dhaweeyay inaba caadi maan aad u mahadsantihiin. Salluuna wuxuu sheegay dabcan jadwalka halkaas inuu u tago lagu soo dhaweeyay xitaa dabcan dhaliisa qaaska ee ninka lagu magacaabo Sheer Khan kama uusan harin wala socday maamada siyaasiyadda ee dabcan way soo dhaweeyay Salman Khan dhankaas waxaa lagu maamuusan caadi ahayn reer Bengal waxay dhan Sallu soo dhawo maalmaha markuu wuxuu joogaa Bengal kadibna Bombay ku soo laaban doona shaqooyinkiisa kale ayuu dabcan aan baqayo doona asigoo halkaas u jooga bandhig faneed iyo howlo dabcan shaqooyin ka gaaban u tagay hadal hayn trending baraha bulshada qaybka Sallu oo dhankaasi Bengal joogo iyo Calcutta lagu soo dhaweeyay oo sidoo kale tan waqti ku qaadanayo. guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub kanaalkan subscribe inoo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.